markaan ku jirno da'deena dhalinyarnimo waa waqti aan u baahannahay in dhaqaale badan abuurno oo dhaqaale badan aynu meel dhigano si nolosheena dambe iyo mustaqbalkeena dambe aynu ugu maareysano intaan barnaamijkeena saaxiib haddaba u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad like follow aad tiraho oo aad ka mid noqoto asxaabta nagu xiran sidoo kale haddaad dhanka YouTube nagala socoto subscribe leh oo nagu soo biir share gareeyo barnaamijkan gaarsiin asxaab badan oo hubaashi ka cabanaya shaqada ay ka shaqeeyaan iyo dhaqaalaha ay qaataan dhaqaalaha yar ee ka sameeyno goobaha shaqada aan ka shaqeyno ama businesska yar aan yeeglanay dhaqaalaha yar ee nooga soo baxa badiba markaan dhalinyarnahay saa'id ayaan u qarash gareynaa oo markii bishuba toban marayso waxay noqonaa kuwo aan waxbaba gacanta ku haynin oo shaqadii ay ka soo shaqeynayeen bishaas oo dhan dhaqaalihii ay ka heleen aan waxba ka haynin sababtuna waxay tahay inaan qarash gareyno in ka badan intii ay mudnayd inaan qarash gareyno taasna waxay keentay in dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha ay dhalinyartu ka cawdaan iyagoo sababeynaya oo oranaya dhaqaalahan qaadanaa ma ahan mid nagu filan wargeyska Al-Ru'ya ayaa wuxuu soo gudbinayaa dhowr qodob oo muhiim ah oo hubaashi dhalinyartu haddii ay dabaqaan ay ku maareyn karaan inay meelna wax dhigtaan sidoo kalena noloshooda ku maareeyaan iyagoo dhaqaalahooda ka faa'iido qodobka koowaad waa inaan si wacan u kala baranno labada shay ah liability and asset markaad si wacan u kala taqaano waxyaabaha qarash ku gelinaya iyo sidoo kale hantida adiga waxa weeye in dhaqaale kugu keento mooyaane aan waxba ka jirin markaan dhalinyarnahay waxaan jecelnahay inay saa'id ugu qarash gareyno waxyaabaha muhiim ahayn oo had iyo jeer u badan liability oo ah inaan iibsano mobile qaali ah laptop qaali ah gaarigii ugu casrisanaa marihii fashionka ugu dambeeyay guri kiradiisu aad u sareyso iyo nolol qaali oo run ahaantii aanan ka bixi kareynin oo mushaharkeena marka la eego aan waafaqsanayn taasna waa keenaysa in qarashaad badan ay gallo dhanka kale inaad si wacan u barato assetka tusaale ahaan haddii aad dhul ka iibsato magaalada aad joogto amaba aad degan tahay hubaashi dhulka in lacag ama qiimo ku kordho mooyaane waxba kama go'aan qodobka ay khubaradu tala ahaan inoo siiyeen waa inaynu nolosheena aad uga fikirno waa inaan gelin wax qarash badan na geliya tusaale ahaan markaan dhalinyarnahay oo aan dhaqaale yar meel ka qaadanayno aynaan isku dayin inaan galno guri kiradiisu aad qaali u tahay amaba aynaan cunin cunto saa'id qaali u ah bal ka waran adigoo awoodo cunto wadan inaad cunto haddii aad habeen kasta ku cashayso biisuhuna waa haddii ugu yaraato waa $5 cunto wadaniguna haddii ugu bato waa $8,000 waa $1 iyo $5 imisa saving ku noqon kara $4 haddii aanad sidaa u fikirin oo aanad u xisaabtamin adigoo eegaya qarashaadka kaaga baxaya iyo waxa faa'iidada helayso walow waxa faa'iido badan cunto wadaniga marka la eego xagga jirka qodobada kale ee khubaradu ka digayaan waxa kamid ah gaadiidka maxaad ku falaysaa gaari qaali ah oo saa'id u qurux badan adigoo xitaa haysan noloshaadii qaybtii kala dhan gaarigu wuxuu kaaga rabaa inaad markasta shidaal ku shubto inaad markasta isaga meedho inaad markasta oo xumaado waxa weeye aad hagaajiso haddii uu taayir kaa banjarana aad samayslaha geyso waa qarash soconaya kuma darin gaariga assetka ku ah amaba aad ku shaqayso tusaale ahaan haddii aad gaari taxi wadato iyada xagga iska dhig laakiin waxaan ka hadlayaa gawadhida raaxada ah ee dhalinyar fara badan markay shaqo galaan ay markiiba ama judhiba iibsadaan taasoo ku keenta inay qarash biil ah ay galaan taasoo aanay awoodin sababna u noqota in dhaqaalahoodii xagga qodobka ugu dambeeya khubaradu tala ahaan inoo siiyeen waa inaan samaysano saving account tusaale ahaan haddii bil kasta mushaharkeenu yahay $300 ugu yaraan $50 wayn awoodnaa inaynu dhex dhiganno account aan ugu talagalnay inaan ku kaydsano lacagta dhalinyar markay nahay taa kama fikirno waxaan markasta ka fikirnaa lacagta aan gacanta ku hayno sidii aynu isla markaaba u qarash gareyn lahayn oo aan ugu dabiri lahayn baahiyaadka taagan inta nool lahay baahi ma joogsanayso oo markasta baahi ayaa taagnaanaysa balse laakiin markastoo aad mushahar qaadato waxaad isku daydaa in saving account-kaaga aad lacag dhigato ugu yaraan $50 ugu yaraan $20 ugu yaraan $10 ugu yaraan $5 waa lacag meel dhigmaysa saaxiibayaal waxaan rajeynayaa in dhammaan talooyinkan ay siiyeen khubaradu ay anfici doonto aynu siday tahay u qaadanno inta ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo